بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabnaa oo aan ugu talagalnay shirkan jaraa'id xaaladii COVID-19 oo runtii wadanka dhanna ka jirta haddana galmudug hadda si baan u haysa inaan update ka sameeyno run ahaantii magaalada Caabud Waaq degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa runtii waxay wajahaysaa xaalad dhab ah ama serious ah oo ku saabsan cudurkan. hore waxaan u shaacinay in deegaanada si baan uu cudurku ugu jiro oo magaalooyin badan ama degmooyin badan ama deegaano badan aad runtii looga dareemayo dadku dhan sheegashadooda iyo sida maaragtay ay wax u dareemayaan ama calaamadaha maaragtay cudurka lagu arkay. laakiin 24 saac ugu dambeeyay magaalada Caabud Waaq waxay iyo balanbalaba runtii waxay wajahayeen xaalad aad u daran oo cudurkaas ah oo runtii laga soo sheegayo community level-ka dad aad u fara badan oo cudurka la jiifa iyo runtii dhimasho dhacday oo dadka oxygen-ku ku dhagayo naqasku ku dhagayo laba qof oo kamid ah dadkaas naqasku ku dhagayo waxa la geeyay magaalada Cadaado xarunta karantiilka oo maalin dhexe oo madaxweynuhu xariga ka jaray runtii qof kamid ah labadaas qof meeshii ayuu ku geeriyooday. halka guud ahaan community level warka ay soo gudbinayaan bahda caafimaadka degmada Caabud Waaq ay tahay runtii in dad badan oo ilaa 4 qof oo kala ah runtii ay halkaas ku dhinteen dadkaasna dhamaantood looga shakisan yahay inuu yahay cudurkii caabuqa coronavirus ama COVID-19. runtii waxaan rabnaa in halkan ka sheegno galmudug ahaan waxaan runtii isku daynay inaan wixii aan heli karno tabar ah oo adeegyadii hore oo naga soo gaaray dawladda dhexe inaan wixii laga gaarsiin karo ka gaarsiino. waxaan runtii u dirnay meeshaas sariiro la dhigo xarunta karantiilka oo Caabud Waaq loogu talagalay iyo qalabkii PPE-ga oo protectionka shaqaalaha u shaqeynaa dadkaas ay runtii oo mutadawiciinta ah oo aan runtii rabo inaan halkan ka sheego inay mudan yihiin in aad loogu mahadceliyo loo duceeyo nafti hurayaal ah. qalabkaas marka iskugu jira dharkii la gashanayay oo kiyaalihii iyo runtii dharkii alaabihii kale oo sida face maskigi iyo galfiskii iyo qalabka lagu baaro qandhada heerka qandhada qofka oo maraa lagu baaro intaasaan runtii si degdeg ah u sii gaarsiinay. laakiin intaasi waxna ku tirimayso runtii waxay u baahan tahay Caabud Waaq in gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo. dawladda dhexe marka waxaan ka codsanaynaa in wax walba oo awoodo Caabud Waaq lala soo gaaro gurmad degdeg ah lala soo gaaro qalab caafimaad lala soo gaaro daawooyin lala soo gaaro runtii sariiro iyo oxygen intaba waxyaabaha ugu baahida badan ay runtii kamid yihiin. marka Caabud Waaq arinteedu runtii waxaan rabnaa in si dhaba loogu istaago gurmad iyo walaalnimo iyo waxay nooga baahan tahay runtii in cudurkan ka hortag uu buu leeyahay maxaa la daawo ma lahan marka wax walba oo la sameey karo oo Caabud Waaq maxaa la gaarsiin karo waxaan codsanaynaa in la gaarsiiyo sidaas la mid ah magaalada Balanballe oo ayadana Caabud Waaq ku dhagan ayadana labada magaalana runtii ay wadaagaan xuduudda Ethiopia oo dad badan oo Ethiopia ka imaanaa oo qulqul ah iyo waxyaalo badan oo cudurkan runtii faafintiisa sahli kara ay aad u soo galaan ayadana waxa waaye wax dhimasho ka maana maqlin laakiin dadku inta badan waxaa noo soo sheegayaan shaqaalaha caafimaadka iyo community level ba inay ka jirto culays aad u fara badan oo caabuqan oo runtii ku wajahaya dadka inta badan ay jiifaan xanuunadaas la jiifaan. marka waxaan rabnaa in labadoodaba wixii la gaarsiin karo kaalmo ah runtii la gaarsiiyo. dawladda dhexna waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah uga jawaabto baaqeena oo waxa wixii dadkaas lagu badbaadin karo oo maaragtay la awoodo in la soo gaarsiiyo sidaas la mid ahna in baaritaan runtii sambalkii baaritaanka iyo dhaqaatiirtii baaritaanka sameyn lahaydba runtii loo soo diro. waxaan rabaa inaan mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka oo waqti kasta u taagan inay badbaadiyaan ummadeena ilaaha badbaado leh oo runtii naftooda huraayo oo xaaladda adag oo criticalka ah ku shaqeynaya. aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.